الأيتام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walahi aad baad mahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacaala haydi barakeeyo. halkaad nagala socotaan waa channelkii Ustaad Maxamed. waxay la fadhiyay maanta marti inoo ah insha allahu tacaala culimadii insha allahu tacaala Helsinki Sheekh Saalax bay la jooga. marka maalin kasta iyo marti cusub barnaamijkeennii ahaa ayaynu gudaha kaga jirnaa. waxay la fadhiyay maanta mid ka mid ah culimada Helsinki ee dalka Finland caasimadda Helsinki oo in badan dacwada ku soo jiray. بل إن شاء الله تعالى سنستفيد شوي إن شاء الله نير بان كفاية سندونا إن بدن قف هذول دعوته كسو جرو كل وحى كتير حكمة ويراكتنمو ديرية مركا بإذن الله الباري وحني وضع مانتا شيخ صالح بينه وضع أكسو دبني فلا تفضل مشكورا وما جرو مركا هراء الشيخ ونسكنبرو ما دام قولوا هاي يذكر أنا قوم باولا يذكر قولوا هاي مركا إن شاء الله تعالى شيخ صالح بارك الله فيك سودو ما شاء الله. بارك الله فيك ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ولكن تسودو. أنا أقول حالي هذا صالح عمر حسن ما شاء الله. تقول عليه مسلمين في فيلم كنا أربعة قارن هلسنكي. ما شاء الله. ما شاء الله مركادي أدبر في عناد ما صنتهاي. الحمد لله والله أريد أقول ما شاء الله دعوده وحويا الحمد لله دعوده وضع كان أدي وجهته ما شاء الله. دعوده وطمان كان سوق أرسل إله سبحانه وتعالى أيان أقوم هذين والله. إله سبحانه وتعالى وفقكم أكو خير لدونه ده هو فشيء وفنسيا دينته وفنسيا هذا فقه في الدين مركو حالي لما دين معنا أوبرا لكن حالي وفنسيا مركو إله سبحانه وتعالى وتوحنا أقوم هذين إله سبحانه وتعالى نوقرتنا دعوده كشقينه الحمد لله دعوده نفتنا يا أبو محمد دعوده أنا قاعد لبان كقبنا ودمنا أن سوق قال لي كالبيت كوضعت اللي كتير qofku xali waxa garan kara qofka waxa macnaha magaalada arrimada ka sii dhax jira runtii daan kaaga hadlo arrimahan dacwadu ma sha Allah way marka yani wadankan xaalad badan baa ka jirta صح si fiican oo yani dadka muslimiinta xaalad badan ku haysata meesha aan joogno meel noogu talagalay ma bahaba qofka muslimka anagu bihad baan ku dhalanay bihad waxa ahayd bihad iska muslimiin ahayd bihad iska fiican oo mutaana dadka salaad lama qalahay halkan laakiin salaadina ma jirto aadana loo maqlay qofka waxa masaajidka keeni kara waa imaamkiisa way aadiyad saawad ogsoonahay waxaan joognaa balad muslimin baan joognaa marka dhammaan waxaa la wada raadinayaa seeban adduunka nolol fiican ugu noolaada aakhirana dee meel wanaagsan aan ugu dambaynaya waxaa laga helana waa diinka marka insha allahu taala xawla hada su-aashaas aynu dul soconaynaaye dadku in badan waxay raadinayaan farxadda ka raadinaya waxyaaba khaldan marka maxaad kula talinayd walaalaha ciriiriga iyo murugta ka dareemaya intay dunida yani ay joogaan oo raaxa raadinaya xaggee raaxadaas laga helaa الحمد لله ورت إله سبحانه وتعالى إسقى هذا بحشة ما شاء الله إله سبحانه وتعالى إسقى قفك متقنع وقرت وناقة إله سبحانه وتعالى وحول بن إله سبحانه وتعالى إسقى قدري نعم لكن راحوا ضدكم معناها راحوا الدنيا معها الدنيا سيدا وقت راحلوا بمتر كده صح نعم الدنيا هو ميل مسافر لوجه القاس هو مهم الدنيا هو ميل مسافر لوجه قفك مؤمن كاي ميل شكر راح يسلم ما راح يسوي دبيسان النبي يقول هذا حسنيه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ما شاء الله marka ma sha Allah halkaas waa muhiim sheekhu nooga dhawaajiyay qofka mu'minka inuu xasiloona dareemo waa muhiim laakiin meel uu ku raaxaysan lahaa ku nagaan lahaa halkani ma meeshuu ku raaxaysan lahaa way dambaysaa marka waxa weeye sadarteed marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nolol kale inuu sameeyo nolosha dhabtana waa tan aakhira weey Allahu akbar marka qofka haduu rabo inuu xasiloona ku noolaado waxa weeye xasiloona lacag laga helo hanti laga helo wax kasto adduunka la isticmaalo maanta dadkan adduunka ku nool qof kasta liimaan ku raadinaya laakiin liimaantu hal shay bas ku jirta liimaanku waxa ku jirta amarka Ilaahay oo la qaato laguna qaato dariiqa rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofku marka liimaanta lagu sheegay taas qofka liimaan taas weey marka liimaantu macnaheedu ma aha lacag inaad ka hesho maanta dadku maxay maanta dadkii lacagta haystay maanta adduunka ugu lacag badnaa isdilay sababta isu dilay raaxo ma haysto lacagna laga meel raaxo laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala raaxada wuxuu galiyay Ilaahay isku soo galiyay ala dhikri Ilaahi tatma'anna al-qulub halka raaxada laga dareemo waa qalbiga weey hadaad hanti kasta haysato kuma anfacayso laakiin qalbiga hadii ku degan yahay raaxo waxaad ka dareemaysaa waa xuska Ilaahay sadarteed qofku haduu rabo inuu raaxo helo wuxuu ogaanayaa markuu dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahayna ku xiro markaas uu deganaa sheelaya marka adoo xataa faqiira oo waxba haysanin oo Ilaahay ba mutaqanaa isaaqada bixi aan waxba haysanin laakiin qalbigaagu Ilaahay uu ku xiran yahay qalbigaagu deganaanaya marka su-aashaad weydiisay marka taas weey waxa uu yar muhiimadu waxa weeye qofku wuxuu ka helayaa raaxo diinka Ilaahay oo uu qaato kula qaato dariiqi rasuulka sallallahu alayhi wasallam halkaas waa muhiim aakhira qofku insha Allah ta'ala aduu dunida ku qaato
dee wanaag uu ku noolaado ilaahay subxana wa taala diinkiisa ku noolaado meel wanaagsan baa loo rajaynayay sidaas wey marka muhiimaddu waxa wey walaalayaal haddii aan rabno dunida inaynu nolol fiican oo xay iyo buuq aan lahayn oo xasilooni qulubta aynu ka dareenno waa inuu diinkeena ku dhaqaaqno taasaan laga helayaa nolol wanaagsan laga helayaa meelaha khaldaynu ka raadinayno xoolaha lagama helo sida sheekhu inoo sheegay xasiloonida xoolaha lagama helo waxaa laga helaa diinka ilaahay oo aad ka shaqayso oo aad ku dhex noolaato ayaad ka helaysaa in sha allahu tacaala ilahay subxana wa taala haynu barakeeyo soo gabagabeynaya qofku xifaadadiisa waxay ku jirtaa inuu diinka ilahay subxana wa taala ka shaqeeyo maxaa yeelay qofku hadduu dacwada ka shaqeeyo isaga ayaa qofku dacwada dan ugu jirtaa inuu ka shaqeeyo maxaa yeelay isagaa ku dhowrsoonaya marka hore isagaa ku dhowrsoomanaya marka labaad dadka walaalihiisu ayuu mataqaanaa ayuu iyagana ugu yaraya dacwada yeelkiisu ugu yaraya saa darteed marka dacwadu waa muhiim bay inoo tahay maxaa yeelay wadamada aan joogno dadki haddaan naga daba tegin dadki xaggay maanta jiraan dadkii maanta xaalad kale ku jiraan dadkii qaflad bay ku jiraan dadkii adduunya kale marka haddaan laga daba tegin oon loogu gelin meelaha ay joogaan يعني dadku mataqaana khafladu way kulmayaan marka saa darteed dacwadu waa muhiim qofka walaalka in mataqaana loo nasteexiyo oo mataqaana meel kasta loogu tago meel kasta xaalad kasta uu ku jiro laga daba tago shaydaanku ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka inuu sheegay cadow baa leenahay cadowguna waa shaydaan iyo naftu hadday isqabtaanna waa laba cadow oo adag wey saa darteed ina nafsa la amaaratan bisuu ilahi subxana wa taala naftu xumaanta ku amraysaa marka waxaa la rabaa khayrka iyo salaadka iyo wanaagga kuma ogola saa darteed marka arrintaas in lagu baraarugo oo qofka walaalka aad u nasteexayso khayrka ugu yeedho dadka walaalahana ay isticlaadaan meeshan maadaama aan joogno culimmadu meeshan way ka hadleen meeshan haddaadan dacwo ka shaqaynayn haween lama joogo garanaya sababtoo xawaal adag baa ka jirta xawaashaan maxaan kaga badbaadi karnaa inaan diin ilaahi subxaana wa tacaala ummadda oo la mideeyo ummadda oo walaala ina haadihi ummatan waaxida dadkan aan la joognana aan diinta ugu yeerno akhlaaqda maxaan ugu yeernaa dadkan diintu waxaa weeye in akhlaaqda inay ka muuqato wey qofka muslimka waxaa la rabaa akhlaaqdiisu inay noqoto akhlaaqdiisu saameyn ku yeelato dhaqankaaga maaha inagu inaan dadka saamayno xumaato horseedno waxaa la rabaa meel kasta tahay naa'ib rasuulillah sala allahu alayhi wasallam qofka muslimka sidiisaba waa naa'ib rasuulillah meel kasta caalamka jooga marka akhlaaqdeennii waxaa la rabaa inay noqoto akhlaaqda rasuulka sala allahu alayhi wasallam sidii aan nooga sheekeynaysa ninkii albaaniga nin kusoo islaamay yani ninha walaalahan ka mid ah shaqadu joogay ninkaas waxay macnaha naag baa kusoo saantay maxay ugu soo islaantay akhlaaqdiisa bas akhlaaqdiisa ay arkay ninkan dabeecadiisa suu dhaqmaayo runtu wax walba ka sheegaya sii tahay saasay kusoo islaantay marka inaga mutaqsaa maanta laga rabaa haddii la rabo waddanka inaan ku badbaado nafteena inaan badbaado marka walaalaha saasaan u dardaarmaya inaan khayrkii wanaag isbarno insha allah ugu dambayntii maqsadkii aynu u nimid meesha wuxuu ahaa adduunyo mar maqsadkii hala bedelo diina loo bedelo markaas iskeenaysaa adduunyada diinku iskeenaysaa aynu diinka ku dadaallo faafintiisa iyo ka shaqayntiisa آخرية دون بقول كل بالنا إن شاء الله تعالى كاسمها والشيخ صالح وكذا علماء هلسنكي أتصور والله وإن شاء الله تعالى ما تيجي فايدني إلهي سبحانه وتعالى ميزان حسنات.